madaxweynaha la doortay ee Somaliland oo muddo dheer aqoon isu lahayn ayaa ku guuleystay madaxweynenimada Somaliland ee 5 sano ee soo socota. waxaan soo xasuustay markaan ku guuleystay markaan xabsiga booliis iyo military ka soo daayay isaga iyo dowliye qamaariye muuse waxaan u howlgalay inta bar dibadda loo diro taas oo iga ogolaaday wasiirkii gaashaandhigu. nasiib darro markii la gaaray ayaa amar madaxweynihii dalka ka yimid la amray in muuse bixi la xidho. markii amarkii baxay ayaa anoo xafiiska fadhiya ayuu qof muhiim ah ii soo galay wuxuuna ii sheegay arrinta cusub ee muuse khusaysa. run ahaan waan naxay laakiin go-aan degdeg ayaan qaatay. waxaan aaday gurigii muuse, albaabka ayaan garaacay. waxay iga furtay xaaskiisa. markay i aragtay way naxday maadaama aanan weligay gurigiisa soo gelin. way soo dhaweysay, fadhiga ayaan fadhiistay. waxaan idhi muuse mee wuu hurdaa, soo toosi, soo kac, yaab, talow maxaa dhacay? toos ayaan ku idhi waad xidhan tahay, boolisiya military way kugu soo socdaan, soo labiso oo ina keen intaan lagu iman. wuu naxay laakiin si degan ayuu go-aan geesinimo lagu qaatay. wuu soo labistay, waananu israacnay isagoo soo kaxaystay baabuurkiisii. waxaanu ku tashanay meel cidlo ah. waxaan isla garanay inuu si qarsoodi ah dalka uga baxo, weliba isla caawa. nasiib darro baasaboor ma haysto, fiisa ma haysto, tigidhna ma haysto, fasaxuu ku dhaafo sidoo kale ma haysto, lacagna ma haysto, laakiin wuxuu haystaa kooras Maraykana. waxaan ku guulaystay inaan baasaboorkii wasaaradda arrimaha dibadda ka soo qaadno intaan warqad codsi ah oo dhoofitaan ah u qoro. 12 ayaan gacanta ku dhignay. muuse isagoo baasaboorkii wata ayuu tegay xafiiskii iskaashiga militariga ee Mareykanka wuxuuna u sheegay inay caawiyaan oo ay fiisa iyo tigidh siiyaan si uu uga badbaado dhibta kusoo fool leh. wuxuu u sheegay cidda uu warka ka helay ee u soo digtay iyo siduu baasaboorka iyo warqadda fasaxa dhoofka ku helay oo qarsoodi ah. Colonel Short wuu naxay wuxuuna garowsaday khatarta sarkaalkan haysata. wuxuuna u soo diyaariyay fiisa iyo tigidh Mareykan ah maadaama uu haysto kooras 2 sano oo Mareykan ah. muuse waxaan ku idhi markaad Mareykanka ka soo noqoto wax hel iyo wax waaba gurigayga imo. waxaana kala dardaarmay xaaskayga anoo xaaladana uga warramay. waxaan ku idhi badroomka ku qari oo ayaana cidna arkin xaaskiisa mooye. anna xafiiskaygii iyo wasaaraddiiba kuma noqon oo meelo kale oo aan xukumo ayaan kormeer u aaday. muuse gurigaygii ma iman ee meel kale ayuu ku dhuuntay. muuse waanu isweynay. markay 8:00 fiidnimo tahay ayuu gurigaygii yimid wuxuuna xaaskayga u sheegay inay wax walba u dhammaadeen oo airportka u socdo oo falaydka caawa ku qoran yahay. anigu waxaan joogaa rugta saraakiisha officers club. xaasku telefoon ayay soo dirtay. guriga ayaan degdeg ku yimid waxayna ii sheegtay fariintii muuse. toos ayaan airportka u yimi waxaana ka soo galay qaybta VIP-da. waxaan u gudbay qaybta immigration-ka saa muuse oo agteeda taagan oo askartii hangashta ee ciidanka shandada la wadaan sidii sarkaal dhoof caadi ah u socda. waar muuse miyaanay ku dhammaan sarkaalkii immigration-ka taliya maxaan qabanaa? maxaad sarkaalka kuyuga ugu haysaan? durbe egastii ugu dhufay. kooxdii hangashna markay i arkeen shandadii la soo cararay oo hoolkii u soo gudbay. runtii isaga deganaansho ayaa ka muuqday laakiin anigu culays ayaan dareemayay. 12:00 fiidnimo ayuu rakaabkii diyaaradda fulay. muusena kuwii u horreeyay ee diyaaradda fula ayuu ahaa. bannaanka hore ayaan maareeyaha garoonka Cabdilaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha waqtigan ee Soomaaliya aabihii Maxamed Cabdilaahi Farmaajo isla taagay isagoo ii sheekeynaya laakiin aan kicitaanka diyaaradda raagsanayo. 12 oo daqiiqada dhiman ayay kacday. alxamdulilah anoo ilaahay bariya laakiin dareemaya inaan dambi xaq ah aan galay. anoo aad u faraxsan ayaan soo noqday. foosiye waa xaaskayga daaradda ayay taagan tahay. anoo baabuurkii kasoo degin ayay igu boobtay ma dhoofay haa markaan idhi ayay ooday oo aan aamusin waayay. marna farxad ayay la ooyi marna dembigii oo ay garan leedahay laakiin u reeraysan. muuse teg isagoo $20 oo kaliya haysta oo aan reerkiina waxba uga tegin oo aan xataa la sii dardaarmin. allaha nabadgeliyo. aroortii xafiiska ayaan fadhiyaa. Saciid Marino waa madaxa kabineetka wasiirka gaashaandhiga. telefoon ayuu ii soo diray. wasiirka Guddooni hore ayaan u booday oo aan xafiiskii wasiirka galay. 3 sarkaal ayaa ku jira oo wasiir Samatar hortaagan. salaan askareed kadib anna leenkii ayaan galay. wasiir Samatar waar doolaal muuse bixi ma aragtay? haa taliya oo mee wuu dhoofay. taliya xagee? goorma? Mareykanka. xalay taliya kooraska ayuu baxay ma hubtaa? haa taliya anaaba airportka ka dhoofiyey. maadiga ayaa dhoofiyey. General Cabdilaahi Cali Cumar oo kooxdan taagan ka mid ah oo kii lagu amray inuu muuse bixi soo xidho ayaa isagoo indhayaaban igu soo eegaya ayuu yidhi waa la amray in la xidho oo ilaa 15 jeer ayaa gurigiisa la tegay oo waa laga soo waayay. intaan cadho iyo indha garagarax isku daray oo wasiir Samatar ku jeesaday ayaan idhi taliya haddii muuse la xidhayo in aanu iga fogeyn oo meesha laga heli karo aan garanayay waad ogeydeen maxaa laygu sheegi waayay.
wasiirku intuuna Cali Cumar eegay ayuu yiri khalad xun ayaad samaysay ninka adiga ayaa fakiyay haddana waa in la soo celiyaa dowladda Soomaalidu waxay isku dayday inay Muuse soo celiso iyaga oo u haysta in aan waxba ogeyn oo si caadi ah u dhoofay Muuse wuu diiday ilaa wax xogagal markaas ay dowladda Mareykanka ka codsatay waxbarashada laga joojiyo laakiin dowladda Mareykanka way diiday maadaama arrinta Muuse iyo xariga uu ku soo baxsaday iyagoo ay ka soo badbaadiyeen sidaas ay Colonel Muuse uu waxbarashadiisii ku soo dhameystay 1983 iyo 85 anagu 1985 waxaan joogay akademiga istiraatiijiyadda nabadgelyada qaranka iyo cilmi baarista Qaahira Muuse halkaas ayuu igala soo hadlay markay waxbarashadu dhamaatay wuxuuna ii sheegay in Sacuudiga uu tagayo laakiin muddo yar kadib waxaan maqlay in uu ku biiray ururkii SNM 1985 sheekadan waxa qoray General Dolaal oo ah ninkii dilka shirqoolka dowladda Siyaad Barre la doonaysay ka badbaadiyay Muuse Biixi oo ah waqtigan madaxweynaha Soomaaliland